leefida ama dhuuqmada ma jiri jirin waagii hore sidaa daraaddeed salafka kama hadlin mas'aladan waxa ugu horeeyay qof tilmaamo leefida farjiga ama dhuuqinta xubinta taranka ee ragga caalim maalig ah oo la dhaho asbaq tafsiirka qurdubi wuxuu yiri ninka waxa uu bannaan inuu carabkiisa ku leefo farjiga culimada casrigan jooga way isku khilaafsan yihiin sheekh saalax luxidaan wuxuu yiri xubinta in la leefo ama in la dhuuqo waa xaaraan wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay falkaas xayawaan shaqadiisa wuxuu kaloo yiri ninka iyo naagta marka ay kacsadaan waxa ka timaado midni kulaato waana nijaas ruuxa ma garan karo marka ay ka imaanayaan biyahaas marka haddii uu leefo ninka xubinta ama uu dhuuqo waxa afka u galaya najaaso marka waa xaaraan laakiin sheekh cali jumca iyo sheekh salmaan cawda iyo sheekh khaalid cabdilmunciim الرفاعي ويبينيان إنو نينكا ليفي كارو ناكتانا دوقي كارتا وحي دليل كديكتين نصوصتا قود أهان كسو أرورتي إنو نينكا ناكتيسا أبنان تاهي وحي شرعي قديد موية